السلام عليكم مقاعيق وعمر برداش waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrimihii propaganda-dii iyo kutukurtaantii magaalada ku jirtay ee ah gabana Cali Bunow Qorane shahaado ma haysto mise shahaadadiisa qushi waaye waxaas waa wax oo been ah dadka abuurana waa dad social media ku soo galaan magacyo hata aan la garanayn waxaan rabnaa inaan ummadda u sheegno Cali Bunow waa nin aqris iyo khibrad bale waa nin aad ugu faano nin aan u malaynayno dawlad goboleedkeena inuu wax ka qabanayo waxyaalo badan baa horyaalaan oo horumar ah oo development ah horaan lacagii Nairobi iska yaali jireen hadda laakiin lacagii waana loo keenay markii siyaasadda ay dhamaatay 6 bilood kadib markii manifestogiisa uu soo dhigtay uu rabay inuu dadkii u shaqeeyo dad ayaa ka daba kacay dadka marka waxaan rabnaa inaan u sheegno waqti siyaasadda lama joogo ninkii raba kursiga governor mise kursiga ambarasaabka oo Garissa County ha u soo tartamo 5 sano kadib dhalinyarada reer Garissa haddaan nahay waxaan beenteynaa arrintan oo la leeyahay governor Cali Bunow wuxuu wataa fake masters arinta ayada ma ogolaanayno mar labaadna ma ogolaanayno mar saddexaadna ma ogolaanayno governaga waqti yar buu kursi ku fadhiyaa muddo bulooyin yar buu ku fadhiyaa 5 sano ayaa la rabaa inuu kursiga ku fadhiyo shaqo weyn way u taashaa dadka reer Garissa rajo weyn ay kaliin governor Cali Bunow hadday noqoto xagga wadooyinka hadday noqoto xagga caafimaadka hadday noqoto shaqo abuurinta shaqo weyn ba rajo weyn ay laga leeyahay Cali Bunow marka arintan ee social media dad muslimiin baan nahay dad walaalo baan nahay dad maanta kala fogo ma nahno dad Soomaali wada dhashaan nahay waxaan rabnaa dadweynaha reer Garissa inaan u sheegno walaaltinimo in la muujiyo midnimo in la muujiyo in maartay been la iska sheego oo ruux walaalka muslimka in xumaan ka sheegto oo arintaas iyada waa mamnuuc xagga diinta islaamka marka waxaan dhihi lahayn arinta iyada waxba kama jiraan governor Cali Bunow Qorane rajo weyn ayaa laga leeyahay insha Allah ta'ala wada county Garissa 5 sano soo socdo waxa la rajaynaynaa isbedel weyn maartay u imaado insha Allah ilaa diira official letter imaata ma jira wax fake letter baaheed arinta dad Facebook maxaa bilaabay dad fake account wataan so arintan waan beenteynayna anagoo dhalinta Garissa waxaan rabaa dadka inaan u sheego qofka leader-ga inta la soo dooranaya yaa la qabsadaa muxuu haystaa qardaasiisa masaxba ninkan hadda tartan ugu horeyso markii saddexaad uu tartamo wuuna ku guuleystay markaas hore waxa la weydiin ma jiro maxaa keenay maanta markii uu guuleystay in waxa oo lagu qabsado